bini'aadanka ayaa noloshiisa mara marxalado kala duwan. Laba ka mid ah ayaa ah dhalinyaronimada iyo gabowga. Inta uu dhalinyarada yahay qofku jidka uu qaado waxay saameyn ballaaran ku yeelataa noloshiisa dambe ee gabowga, isagoona qofku gurta mirihii uu soo beertay intii uu yaraa ama uusan soo gaarin waayaha gabowga. Dadku qayb waa ka qowmameeyaan inaysan waxyaalo badan oo muhiim u ahaa noloshooda samayn dhallinyaronimadoodii, halka kuwa kale ku dhammaystaan waayahooda gabowga farxad iyo ka raalli ahaansho intii ay noloshooda soo mareen. Haddaba muuqaalkan ayaan idinkula wadaagaynaa 9 arrimood oo muhiim ah inaad samaysid intaad yar tahay. 1. Lahaanshaha hadafyo. Lahaanshaha hadafyadu waxay ka caawisaa qofka inuu yaqaan meesha uu hiigsanayo iyo tubta uu u marayo. Sidoo kale waxay u tahay dhiirigelin siisa shidaal uu ku gaaro halka uu doonayo. Dhanka kale, lahaanshaha hadafyo cadcad waxay horseed u noqdaan in qofku horumar la taaban karo ka sameeyo nolosha isagoo isbeddel samaynaya. In qofku samaysto hadafyo xilliga uu yar yahay waxay ka caawisaa markuu weynaado inuu ku noolaado nolol farxad leh, iskuna arko qof nolosha waayihiisii horumar la taaban karo kasoo sameeyey. 2. Qaadashada khataro waa mid ka mid ah astaamaha lagu yaqaan dhalinyarada. In badan oo ka midane u horseeday horumar ay ku baraareen, maxaa yeelay qofka intuu yar yahay wuxuu qaadan karaa khatar ka badan marka loo barbar dhigo markuu weynaado, oo ay aad u soo yaraanayso qaadashada go'aano masiiriya, hase ahaatee khatar badan ku gadaaman tahay. 3. U safridda meelo badan. U safridda meelo kala duwan waxay kaalin weyn ka qaadataa in qofku maskaxdiisu korto una soo arko nolol, dhaqanno iyo dabeecado ka duwan deegaankiisii. Dad badan way ku riyoodaan inay safraan, hase ahaatee uma suurtoodo. Mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ayaa ah inaysan bilaabin ama ka shaqayn qaabkii ay ugu safri lahaayeen deegaano ka baxsan deegaankooda. Ku noolaanshaha hal magaalo noloshaada oo dhan ma ahan arrin fiican. Badi dadka noloshooda ku qaata hal magaalo ayaa ah kuwa aan aqoon durugsan u lahayn dunida inteeda kale, waxayna la mid yihiin jiir haan ku dhex weynaaday. Dhanka kale, u safridda meelo badan ayaa leh faa'iidooyin fara badan, ayna ka mid tahay in qofku noqdo mid hal abuur leh, isdhexgal fiican la yeesha bulshada, sidoo kale xasuuso badan oo qurxoon hela marka uu weynaado. Dadka aan safrin ayaa ka qowmameeya markay weynaadaan in aysan safrin oo ay hooseyso khibradooda dhanka safarka dunida ah. 4. Barashada xirfado kala duwan. Barashada xirfado kala duwan waxay kaalin weyn ka qaadan kartaa in qofku yeesho ilo kala duwan oo dakhli iyo inuu sare u kaco heerka dakhliga ee qofka. Sidoo kale ku guuleysta tartanka lagula jiro nolosha ee helidda dakhli fiican si uusan qofku u noqon mid u lug xiran hal shaqo. Barashada xirfaduhu waxay ka caawisaa qofka inuu noqdo mid leh kala doorasho shaqooyin kala duwan ee uu yaqaan. Inta badan xirfadaha ayaa la bartaa xilliga dhalinyaronimada, waxayna qofka ka caawisaa inuu helo mustaqbal qurxoon. Dad badan oo xilligan ku jira da'da gabowga waxay ka qowmameeyaan in aysan dhallinyaronimadoodii baran xirfado kala duwan, taasi oo ahayd jaanis weyn oo u furnayd xilligoodii dhalinyaronimada. 5. Samaysasho saaxiibo wanaagsan. Saaxiibada iyo cidda uu la socdo qofku xilliga uu yar yahay waxay saameyn weyn ku yeeshaan noloshiisa dhammaanteed. Saaxiibka wanaagsan wuxuu kaa caawin karaa inuu kugu dhiirigeliyo caadooyin wanaagsan oo noloshaada ku horumarin kartid, sida fursado ganacsi oo kale, halka saaxiibka aan wanaagsanayn noloshaada la degayo kuna jihaynayo meel ka hooseysa meel aad gaari lahayd la'aantiis, ama kugu daaran karo caadooyin aan wanaagsanayn sida barashada mukhaadaraadka oo kale. Haddii saaxiibadaadu yihiin dad horay u socda, waxaan shaki ku jirin inaad ka helaysid dhiiranaan iyo horumar. Marka la fiiriyo diinta Islaamka, la saaxiibidda dad wanaagsan waxay ku jirtaa waxyaalaha kuu horseedi kara inaad khayr badan heshid, jannadana geshid. Marka qofku weynaado, wuxuu dareemaa nooca saaxiibada uu samaystay yaraantiisii iyo saameynta ay ku yeesheen noloshiisa. Dad badan waxay ka qowmameeyaan in aysan samaysan saaxiibo wanaagsan, halka kuwa kale ka faa'iidaan saaxiibada ay samaysteen yaraantoodii. 6. Hagaajinta xiriirka qoyskaaga.
qoyskaagu wuxuu ka mid yahay dad yar oo badi jecel horumarkaaga iyo ka warqabidda xaaladaada, sida hooyada, aabbaha iyo walaalaha oo kale. Laga yaabee mararka qaarkood inayna isku fiicnayn oo waxyaalo badan ku kala fikir duwan tihiin. Hase ahaatee, xiriirka wanaagsan ee qoyska xubnihiisa wuxuu horseed u noqdaa istolasiin iyo iscaawin joogto ah, taasi oo qayb weyn ka qaadata horumarka qofka dhallinyarada ah, saameynteedana uu dareemo kolka uu weynaado. 7. Cunidda cunto dheellitiran iyo samaynta jimicsi. Cunidda cunto dheellitiran iyo samaynta jimicsi waa sirta helidda jir caafimaad qaba oo qurxoon, halka cunidda cunto badan oo aan caafimaad ahayn sida cuntooyinka warshadaysan iyo samayn la'aanta jimicsi ay horseed u noqdaan cudurro badan iyo buurni caqabad ku noqon karta qofka noloshiisa. Khaladaad badan oo dhankaasa badi dadku waxay galaan xilliga da'doodu yar tahay ee dhallinyaronimada. Hase ahaatee, waxay si wacan u ogaadaan kolka da'doodu weynaato ay nala soo daristo cudurro ka hortegid lahaa oo uga yimid isdhigashadii xilligii yaraanta iyo waayihii dhallinyaronimada, sida sonkorta, dufanka iyo cudurro kale oo badan oo dadka uga yimaada hanaanka cunto cunidda iyo jimicsi la'aantaba. 8. Lacag kaysasho. Waxaad maanta dhigatid berri baad u baxsataa waa oraah qiimo weyn leh, badi bangiyadana lagu arko, taasi oo ka dhigan qofku inuu wax uun kaydsado waxa uu shaqaysto ama dakhligiisa si uu ugu baxsado maalin uu baahi weyn u qabo oo wax u tarayso. Wax kaydsashadu waxay ka dhigtaa qofka mid ka xor ah qaadashada dayn iyo qaan banki. Dad badan waxay ka quumameeyaan inaysan lacag dhigan, waxayse garowsadaan muhiimadda kaysashada lacagta marka ay la soo gudboonaato hawl adag oo u baahan dhaqaale degdeg ah. Qofka jeebkiisa waxa ku jira ma ahane uusan kaga baahi baxayn lacag uga timaada meel kale. 9. Bilaabidda ganacsi kuu gooniya. Bilaabidda ganacsi waa mid caqabado badan leh, hase ahaatee waa shaqada ugu wanaagsan ee qofku qaban karo noloshiisa iyo fursadda ugu weyn ee uu ku hodmi karo, waana bilowga guusha iyo ka xoroobidda nolosha shaqaalanimada. In qofku bilaabo ganacsi u gaara waa fursad mar walba furan, hase ahaatee waa mid fiican inuu bilaabo marka da'diisu yar tahay oo dhalinyaro yahay, maxaa yeelay waa xilliga qofku ugu firfircoon yahay, xooggiisuna ugu badan yahay. Intaas waxaa noogu dhan muuqaalkii aan ku soo bandhigaynay 9 arrimood oo muhiim ah inaad samaysid intaad yar tahay. Haddii aad garanaysid arrin kale oo muhiim ah qabashada xilliga dhallinyaronimada, qaybta commentiga noogu reeb. Mahadsanid.